أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منه. انت كذب وعشر كاني إنه قصة كتابك صحيح آداب الإسلامية. إلهي إنه حكبرنا سبحانه وتعالى إنه نسهله ودقنك diinteena iyo fahankaba. waxaan soo dhamaynay marka aadaabtii ka hadlaysay aadaabta kalaamka ama nidaamka qofka muslimka ah loogu talagalay hadalka inuu hadlo. waxaa insha allahu tacaala maanta casharkeenu ku saabsan yahay baabka 20aad waa aadaabu diyaafa. aadaabta ama nidaamka islaamku inoo dejiyey ee la doonayo qofka in lagu soo dhoweeyo. aadaabta martisooridda, aadaabta martigelinta, aadaabta yacni qofka uu u martigeliyo usoo dhoweeyo waa sida 5 qodob bay ka kooban tahay aada muhiim u ah. qodobka koobaad waa fatxu lbaabi qabla wusuuli dayf, in albaabka qofka laga furo inta ninka martida ama qofka martida albaabka uusan gaarin, intuusan soo gaarin amaba albaabka uusan isaga iska furin, in albaabka laga furo wey. qodobka labaad arki doono faahfaahintiisa waxaa weeyaan iithaaru dayf, qofka martida ah in loo furo wax walba. waxaad adiga u baahan tahay isaga inaad siisid, isaga inaad ku dharjisid, isaga inuu quuto meel fiican wax walba oo wanaag ah oo markaa naftaada u baahneyd intaa yara tembrariga kula joogo qofka asiga inaad isaga siisid, iyo wa tafdiilihi iyo inaad maaragtay fadishid. fadligaas waxaa la yihahdaa micnaha qofka ina aada u karaamaysid. qodobka saddexaad arki doona faahfaahintiisa waxaa weeyaan anniya asaalixa. waxaa kusoo dhawaysaa niyad farxad leh wanaagsan ilaa agtisid ajar kaga helaysid, laakiin hoo ku go yacni inaysan noqonin waxa aad siinaysid. qodobka afraad faahfaahintiisa waxaan ku arki doonaa xusnu istiqbaali dayf, in qofka aada u wanaajiyo qaabka u qaabilayo oo uu usoo dhaweynayo guriga gudihiisa ama meeshii uu ku qaabilayay inuu si fiican u sharfo oo usoo dhaweeyo. qodobka shanaad waxaa weeyaan taqdiimu waajib diyaafa, inuu qofka waajibka diyaafada ama martigelinta
waajibkeeda inuu hormariyo iyo wa ikraami dayf iyo martigelintaasi sharfideeda, marti sharaf leh inay ku ahaato martidaas kuu soo martisay. haddii aan sii faahfaahino qodobka koowaad waa fatxu lbaab qabla wusuuli dayf. fatxu lbaab, albaabka in laga furo martidii qabla wusuuli dayf inta aysan soo gaarin yani albaabka. sunnada ilahay waxaa ka mid ah dadka ahlujannaha ah inta aysan albaabka sii gaarin jannaad waa laga furayaa. gurfooyinka ay gelayaan iyo aseendooyinka guryaha maaragtay waaweyn ee ilaahay uu siinaya ee baalaska ah oo jannada ay ku leeyihiin waxa weeyaan albaabka waa loo sii furaya. rabbi wuxuu ku tilmaamayaa laba aayadooda kala duwan. aayad fii suurati zumar ku jirta rabbi wuxuu leeyahay xataa idaa jaa-uuha, ilaa jeero ay yimaadaan dadkii mu'miniinta ahaa. xaggee imanayaan? waa jannadii. ilaa haadaas u noqonayseen. futixad waa la furayaa abwaabuhaa, albaabadeeda loo furaya. ayaga ma furayaan, albaabada waa loo sii furaya. bimacnaa waa maxay? waa marti sharaf, waa wadiyuuf araxmaan wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala bay markaa u horumarti u yihiin. markaasaa guryihii ay degi lahaayeen ayaa loo sii furaya, loosii ayagoo u firaashan oo waxba diyaar u ah. aayad kale rabbi wuxuu leeyahay fi suurati saad jannaatu cadnin mufataxatan lahum abwaab. jannaatu cadnin, jannooyin ayaa lagu abaalmarinayaa mu'miniinta muttaqiinta. cadnin nagaadi u saaxiib ah, oon laga guuraynin, oon baaba'aynin, oon laga baaliyoobaynin, oo laga xanuunsanaynin, oon laga duqoobaynin ayay leeyihiin. taasoo mufataxatan lahum alabwaab, albaabadeeda loo furfurfay. albaabada abwaabta jannaad yacni guryaha ku yaala maaragtay muxuu ahaa yani maaragtay qusuurta iyo daaraha ku dhex yaala, albaabada waa lagu sii furaya, waa lagu sii furaya. gurigaan aan furo aan fiiriyo waxba kuma daalaysa. marka rabbi subxaanahu wa tacaala nidaamka dadka jannada loogu soo dhaweynayo sidaasuu ku tilmaamay. waana sida la doonayo qofka muuminka ah inuu qofka ahlu jannaha ah sidaa yani qofka walaalkiisa dayfka ay martida ah inuu sidaa kusoo dhaweeyo. qodobka labaad waxaa weeye iithaaru dayf. iithaar yani qofkii maaragtay muxuu ahaa dayfka ahaa in aad u hurtid wax walba oo wanaagsan, iyo wa tafdiilihi in uu qofkii karaameeyo oo uu fadilo. allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamaya dadka mu'miniinta ee lagu soo dhaweeyey yani maaragtay magaalada madiina oo ay soo dhaweeyeen ansaartii muhaajiriintii iyo dadkii asxaabu sufada ah qaabkii loo soo dhaweeyey. rabbi wuxuu leeyahay yu'thiruuna calaa oo ciddi kale u hurayaan walow kaana bihim khasaasa, ayadoo welibana xaajo iyo dhib iyo maaragtay muxuu ahaa uu haysto baahi. waman ruuxii yuuqa laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakiilnimadeeda daran, fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuun, waa kuwa liibaanay ayuu leeyahay rabbi subxaana watacaala. aayadan la tilmaamaa in rabbi subxaanahu wa tacaala yani maaragtay muxuu ah culamada ay yidhaahdaan xadiidka aayaddan waxay kusoo degtay sawa nuzuul bay lahayd. taasina waxaa weeyaan xadiid abi hurayra uu warinayo saxiixeyn ku sugan. abu hurayra wuxuu leeyahay radia allahu canhu ardaah ataa rajulun rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid. markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah, rasuulkii allow, asaabanii waxaa itaabtay aljahdu, yacni abaar iyo faqiirnimo iyo rafaad baana taabtay. fa arsala ilaa nisa yani muxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka arsala ilaa nisaa'i, ninkii asaga ahaa ay yimid ee maaragtay muxuu ahaa dhibka sheeganayay ayaa marka wuxuu ku yidhi orodoo fa arsala ilaa nisaa'ihi, haweenkiisii qaar ka mida buu u diray. anis baa la raaciyey. waxaa la yidhi orod macnaha guri hablaaye gee, qofka kan ha soo quurto adliist haddego hala martigeliyo hala soo dhaweeyo. falam yajid cindahunna
haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam guryahoodii markii lagu wareegay wax laga helay haba yaraatee oo shay a ma lahan wax hataa ninkaa lagu soora la waayey daameynis waxaa waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaga wuxuu dhaamo maba jirinba mawjada oo isagaaba macnaha maaragtay tiisa haysatay suubanaha sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabiga calayhi salaatu wasalaam marka isagoo saxaabadii dhex fadhiya oo salaadii la tukaday ayaa wuxuu ku yidhi alaa rajulun ma idinku jiraa nin yudayifu hadihi allayla habeenka kani ama caawa yani marti gelinaya oo yarxamuhu allah ilahay u naxariisto qof ma idinku jiraa caawa qof marti baa noo joogo agteeda waxba waan ka weynay qofkaa marti geliya ma idinku jiraa oo ilaahay u naxariisto faqaama rajulun nin baa istaagay oo min alansaar ree ansaareed ah faqaala markaasu wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah rasuulka allahu ninka anaa marti gelinayo kaa kaxeeya buu yidhi ma saas ahaa waay kaxe fadahaba ilaa ninkii wuu kaxeeyey reerkiisii uu dhex fadhiistay faqaala liimra'atih haweenaydiisii wuxuu ku yidhi dayfu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga alle martidiisiibaa guriga caawa noo dhex fadhida ee laa taddakhiriihi haka hakranin shay-an waxba wax aad yani maaragtay ka kaydsataa oo aad tidhaahdaa waxaan hadda waa cuni doonaa ninkaan lama siinayo jooji buu yidhi laa taddakhiriihi waxaad ka hagrataa yaysan jirin haba yaraatay faqaala waxay tidhi adaniyaho wallaahi maa cindii shay-un maa cindii haba yaraatee wax agteeda yaalla ma lahan ilaa quutu sibyati ilmaha yar waxaan buba yaroo ilmaha aan rabo inaan mishaari uga dhigo subaxii ama caawa aan ku siixiyo xoogaagaas yar un baan haystaabay wax kaloo hadda noo yaallo maba lahanba waayo markii uu markay sidaa tiri ayaa marka wuxuu ku yidhi ninkii asaga ahaa fa idaa araada sibyatu alcashaa'a haddii aad carruurta yaryar yacni casho u samaynaysid caawa oo casho ay kaa doonayaan oo ay yacni ku ooyaan oo ay rabaan inaad casho siisay si u seexdaan fanawwimiihim intaa sasabtid siixi xoogaa sasab xoogaa maaragtay isku day inay kaa seexdaan iska siixi buu ku yidhi wa tacaala raashiinkana noo keen fadfi'ii waxaad demisaa assiraaja faynuuskana demi wanadwii butuunana alleyl caawa calooshanada aska haysan anaga nafkeen annaga hataa calooshanada caawa iyaysan waxba ku dhicinoo haska baahnaano sidaas ayuu ku yidhi waa maxay dabka wax saar ilmaha ku sarsado inaad wax karinaysid sidaa ha ku seexdaan ninkaan martidaa meesha fadhiya soo maaha raashiinkii soo gur faynuuska demi na soo agdhig raashiinka marka maxay samaynayaan inay isku dayaan in maaragtay muxuu ahaa inay iska dhigaan dad wax cunayo kale malaakiin martidii ay usoo dhaweeyaan waayo fa facalat haweenaydii sidii bay samaysay raashiinkii bay soo qaadeen xeeradii meeshii baa lasoo dhigay faanuuskii bay demisay si oo accident camal u demisay oo laakiin way damacsanaan inay demiso markay demiso meesha soo fadhiisato ninkiina meesha haye noowad isee tahay xaggee ka timid ninkiiba mar lagu riixaa waa lagu riixaa isagana uma jeedo ninkii asaga ha uu casheeyey si fiican buu u noolaaday ilaa wixii waa wax yar waayo ilmaha loogu talagalay labadan xoogaa ayaga oo markaasi calooshooda iska sisi ah oo gaajaysan ayay seexdeen ilmihiina waxaa lagu siixiyeyba gaajo arrinkii asaga ahaa wuxuu noqday wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo ammaanay fooqa 7 samaawaat fafacala uma qadara rajulu ninkiibaa subaxi markuu waaga baryey waagii markuu baryay waxaa la iska aaday nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa moo jeeda faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad cajiba allah ilaahay subxaanahu wa tacaala aad buu u jeclaaday caza wajal oo uu la yaabay ow daxika
ama ilaahay wuu ku qoslay min fulaan wa fulaana hebel iyo heblaaye xalay ilaahay subxaanahu wa tacaala aad buu la yaabay aad buu ugu qoslay alla subxaanahu wa tacaala sidoo kale rabbi weyne aad bay arrintaas u farx gelisay oo wuu soo dhaweeyey waxa ay sameeyeen faanzala allahu caza wajal ilaahayna arrinkooda wuxuu ku soo dejiyey wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftoodii bay ka hureen oo u hureen ninka asaga naftoodii ayaa maaragtay intay ka qaadeen ayay qofkii kale iitaar u sameeyeen oo qofkii kale raashinkii siiyeen ayagoo walow kaana bihim khasaasa gaajo ay hayso rafaasan oo iska yacni maaragtay baahi ay hayso bay sidii sameeyeen marka waa arrin ilaahay ku ammaanay subxaanahu wa tacala taana waxay ku tusaysaa martida sideedaba wax walbaa loo huraa adoo baahan oo rafaasan oo waxyaabaha qaarkood aan samayn karin oo wakti haynin ayaa haddana laisdhibaa si qofkaa martida ah ilaahay sababkiisa uu kugu soo naxariisto oo isagiina markaasi qalbigiisa faraxsan uu meeshii u ka tago waa saas weeye qodobka saddexaad waxaa weeyaan ikhwaani anniya niyada saalixa waa muhiim saxiixaynka waxaa ku yimid can cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu wa ardaah qaala wuxuu yidhi wahuwa cala almimbari cumar isaga oo mimbarka saaran buu wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi asalaatu wasalaam ayaan maqlay yaquulu leh inama alacmaalu binniyaat acmaasha sideedaba waa kuwo ka guntama niyada waxa aad samaynaysid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ajar kaa siinayo waa wax niyada ka soo fulay oo ka guntamay wey wa inamaa likulli imri'in qof walbana waxaa la siiyaa oo ilaahay uu ku abaalmariyaa maa nawaa wixii uu markaasi niyeysto ama wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof kasta wuxuu niyeysta ayuu leeyahay waa sidaas wey haddaba marka faman kaanat hijratuhu qofkay tahay aadistiisa uu intuu meel ka tago meel kale aadayo ila allahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa darteed hadday tahay fa hijratuhu hijradiisaas iyo bixitaankiisa uu meel macsi iyo mushkilad ka tegey oo uu meel wanaag iyo sunno iyo beled islaam uu tegey iyo meel uu diintiisa ku baraagsikanayn karo hijradaasi ila allahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisii ahaatay qofkaa waa laga ajar siinaya waman kaanad qofkii ahaatay hijratuhu meel inuu aado ila adunyaa ganacsi ama ila adunyaa adduunyo yusiibuhaa inuu ka soo ganacsado oo amase ilaa imra'atin haweeney yankixuhaa inuu soo guursado hadduu magaalo kale u aado fa hijratuhu waxa uu aaday waa ilaa maa haajara ilayhi ajarkeedu waa wixii u hijrooday u yidhi macnaha waa maxay ganacsi baa aaday howl ku taallo way wuxuu ilaahay kaa siiya alla ganacsigaas oo ajar macnaha muxuu ahaa faa'iida ah haweeney baa soo guursanaysaa yacni wax lamid ma tihid qofkii hijrooday oo ilaahay dartii u hijrooday marka niyada wanaagsan wuxuu sheekha meesha u keenay waxa weeyaan qofka kan ha kugu ammaano hadday tahay oo beri ka maalin si fiican ha kuu soo dhaweeyo oo abaalka maanta aad u gudaysa ha kuu gudo hadday niyadaada tahay dan ajar ma helaysid haddayse tahay qofkan walaalka ah maanta noole maanta martidiisii maadaama la yidhi maaragtay qofka muslimka ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey falyukrim dayfahu maadaama la yidhi karaamee oo sunnadaas iyo maaragtay muxuu ahaa waajibkaa rabbina saaray ka soo bax ilaahay ugu dhow haddaad tidhaahdidna ajar baad leedahay xabad kasta oo beriisa uu cunay beriiska uu cunay xabad kasta oo beriisa ashyaada uu cunay kulligood ilahay ajar buu kaa siinaya subxaanahu wa tacaala waa sidaas weeyaan iyo waktigaagaba qodobka afraad waxaa weya ikhwaani xusnu istiqbaali dayf in qofka uu wanaajiyo qaabka uu u qaabilayo martida iyo watarxiibi bihi iyo inuu aada u soo dhaweeyo tarxiib soo dhawow in maaragtay muxuu ahaa aadan su-aalaha ku adkaynin inaad wejiga u furfurtid inaad maaragtay muxuu aha mamar hataa fadhiga u kacdid in la mucaanaqeeyo in maaragtay muxuu aha waxyaabaha qaarkood oo uu ka xishoonay hataa la yidhahdo maya maaragtay waad fiican tahay cabbiyahan waa haysana annaga okay baa nahay wahaakada in si wanaagsan loo soo dhaweeyo
الترمذي وحليه وقال حسن غريب عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك النبي عليه الصلاة والسلام حليه تبسمك دول عدينت دول عدينيس في وجه أخيك ولالك مسلمك أي مسلمات أو وجهك منها وجهك دول عدينيس لك صدقة يقول ما شاء الله يسود وسياتا مفرح وهكذا كتر هذه وحويان وصدقوا إلهي صدقك هذا بقية وإن النيس أيضا روايات كلا الصحيحين كسوغا عبد الله بن عباس وحوليه رضي الله تعالى عنهما وحير لما قدم وفد عبد القيس أوي من النبي عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فدقوا أوكعي وحيري مرحبا بالوفد الذي جاءوا غير خزايا ولا نداما وجد مرحبا سودوا هذا بالوفد الذي وفدقي أهالي يعني ما محوها غير عبد القيس جاءوا غير غزايا كاسوا كوه من غير خزايا يعني كوه أيوة أهين وحاوت مادين horta soo dhawaada bishaaraysta waxa u dimaateen waxa ku hogteen maaha wala nadaama waxa ka qoomameynaysan ma bimaana waa maxay socodkiina iyo maaragtay imaatinkiina iyo danta aad leedihiin waa mid lagu liibaanay oo bishaaraysta khayr iyo wanaag haba yaraatee waxaad ku soo lugoodeen ma ahan diin iyo waxyi baa ladin siinaya soo dhaweynna waa ladinku daraya saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam كوذا مركا قاب كاس أصول دويسو بناه صلى الله عليه وسلم وأساس وياه مدكرة إن صحيحين كوحاكو يمت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة أيضا قولوا قد جوكتور النبي صلى الله عليه وسلم ولجعوا أي وحيتري أقبلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صوان كالشيقوري أماتي وصوص عطا الديردي وصوص عطا مركا صوص عطا بفيرنيس مركا وحيتري تمشي كأن مشيتها والسعطة الله سعد كذا وحد مودا مشي النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي عليه الصلاة والسلام السعد أكل أيد مودا مركا فاطمة بنت رسول الله وحي آد هو أكيد أبهد قاب سعدك قابك معناها مارتي حتى دقناشها دينا عكسة مك الله في ريو أبهد أي وكيد رضي الله تعالى عنه وايح مع شاهدك وأكل مركا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مركا يصور دواتيب والنبي عليه الصلاة والسلام يستوحيري مرحبا بابنتي مرحبا صدقوا بابنتي قبل يدي صدقوا بكل النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرتبة هذا قرية ستمت قرية ذين كتمت ساس صدقوا يسوع بناه صلى الله عليه وسلم واساس ويا مركا إيه الكيس الله صدقوا تذكي يحاول قراوتها صلى الله صدقوا قفكي كلو مرتكوها صلى الله صدقوا martida marka inaysan dareen kaa qaadin adigana haddaa meel martisid oo marti noqotid ahow marti sharfan ee ha noqonin marti macnaha u tagtay sidii qaab jaajuus oo kale oo guriga dadka fiirfiirinaya oo wax walba comment ka sameynaya oo hadda markaa barnaamij soo faahfaahsan oo baarkiisa qofkii war ma seenayay ma u jeeday waxay noo kartay nasiisay ma arkaysay waxay say noo fiirinaysa ma arkaysay say noo dhibsatay ma arkaysay say maartay waxa kale marka qofka inuu sidaas sameeyo ma wajida hadii lagu martigeliyay halkaas sheekada ha ahaato adigana waxa weeyaan qofkaan ku maamusay inaad sharaftid oo soo dhawaysa laga doono way وفي الصحيحين وحاكو يمد قالت أم هاني وحي لدهي أم هاني النبي صلى الله عليه وسلم المعذر بأحيان أم هاني وحي لدهي علي بن أبي طالب الله دي هذه كوين وياه وحيث لما جئت على النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنوي منه مركا أصلا قليبا فقال وحويري مرحبا بأم هاني مرحبا سودو بأم هاني أم هاني سودو أيوه يربت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وايه إن شاء الله وحنوضم بيقولوا كان وقضب كسنات وتقديم واجب الضيافة
in laga horumariyo wax walba waajibka markaa diyaafada ay leedahay mujeda yacni qaabka aad u marti gelinaysid inaad wax walba ka hormarisid iyo wa ikraamu dayf iyo karaamaynta martida macnaheedu waxa weeyaan qof marti a yimid albaabkii soo istay albaabka ka furtay albaabka usii furtay ama gurigaagu yimid isagoo markaa fadhiistay ama taagan baa ku bilowda sheeko haye markaas ka waran kaas ka waran kaas ka waran waxbaad daldashay meeshuu ka yimid iyo wuxuu dantiisa tahay waxaas o dhan baa weydiisay adigoo waxba siininba mujeda marka lama rabo saas sharciga siduu noo tilmaami doono waxa weeyaan martida markay timaado la fariisiiyo markiiba waa inaad isgedisaa xoogaa refreshment iyo waxyaaba ay kusii madadaashadaan oo ay cunaan waxaa usoo dhig hadalkii macnaha maaragtay maasha allah soo dhawaada see tihiin iyo warrama haddana ka noqo waxaa qalqaaladii bilow marka guriga wixii la karin lahaa iyo wixii maaragtay la magaciiseyn lahaa iyo umuurta isku dubarid mujeda marka cuntada dusheeda lagu sheekaysto wixii muraada cuntada dusheeda ha ahato waaya taa waxaa kutusaya nabiga alayhi nabiyina nabi ibrahim calayhi الsalaam fi suurati daariyat suurat daariyat alla weyn wuxuu tilmaamay qaabkii uu u marti sooray isagoo hataana wareysanayn ila wuxuu moodaya dad macnaha marti ah oo u yimid usan garanayn allah isagoo ka warramaya wuxuu leeyahay hal ataaka xadiidu dayfi ibrahim almukramiin ma ku timid sheekadii ibrahim calayhi الsalaam martigelintii uu martigeliyey martidii sharfanayd ee mukramiinta ahayd id dakaluu calayhi markay usoo galeen faqaaluu salaama id dakaluu calayh markay usoo galeen faqaaluu waxay yidhahdeen salaama nabadgelyo korkaaga ha ahaato asalaamu calaykum qaala marka wuxuu yidhi salaamun nabadgelyo yani korkiina ha ahaato qawmun munkaruun waxaad tihiin dad aan la garanayn soo dhawaada see tihiin markiiba muxuu sameeyey ma sii waraysan faraaga ilaa ahlihi reerkiisi xaggii reerkiibuu ku cararay markaasuu isku soo dubariday fa jaa'a wuxuu keenay bicijlin dibi samiinin shiloon yani dibi cayilan hilibkiisa oo la dubay wa jaa'a bixijrin xaniidna waa aayad kaa odhanaysa xaniidkaa waxaa way dibi la dubay oo la solay ayuu u keenay hilib shiilan oo si fiican maaragtay muxuu ahaa loo magaranaysaa loo beegareeyey oo isku dubaracsan waslado waaweyn buu u keenay faqarabahu ilayhim uu usoo dhaweeyey markaasay markay taaban waayeen bu wuxuu yidhi faqaala alaa ta'kuluun oo miyada cunaynin maxaa idinku dhacay faawjasa minhum khiifatan waa si uu ka baqay marka waxay u sheegeen annaga waxaan u soconnaa halkaas wiil bay ugu bishaareeyeen wayna maaragtay kasii socdeen xagga iyo luud bay sii aadeen marka macalushaadka waxa weeyaan salaaman markii las yiri faraaqa ilaa ahlihi halkaasuu aaday martisoorkii buu bilaabay saxiixeynka waxaa ku yimid can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ardaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhi man kana yu'minu billah qofkii alla weyne rumeeyey qofkii ahaaday mid rumeeyey alla weyne walyawmi alaakhiri maalinkii dambeeyey falaa yu'di jaarah war dariskiisa yuusan dhibin waman kaana qofkii ahaaday yu'minu mid rumeeyey billaahi alla weyne walyawmi alaakhir iyo maalinkii dambeeyey falyukrim ha sharfo oo ha soo dhaweeyo dayfahu martidiisa waman ruuxii kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey billaahi allah walyawmi alaakhir iyo maalinkii dambeeyey falyaqul ha yidhaahdo khayran wax wanaagsan aw liyasmut ama haba iska aamusaba shib iska dhig aamus ama khayr ku hadal daldalankan ee meelaha lagu daldalmayo oo facebookya lagu daldalmayo oo social mediaha qeybaha kala duwan lagu daldalmayo iyo baabtoogaas waxa weeyaan qofka hadduusan khayr sheegaynin shib iska dhig wardigaaga iska wado mujada waxaa weeyaan wax ka khayr badan ilaahay dikrigiisa ma jirto kaa ku daal kaasaad waxaa weeyaan adduuni aakhira ilahay kugu liibaanaya subxaanahu wa tacala fafi saxiixayn can cabdullaahi ibni camr ibn caas radia allahu tacaala canhuma qaal cabdullaahi ibni camr ibn caas ayaa marka waxa uu leeyahay qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u yidhi
yaa cabdallah cabdullaahiyow alam ukbar annaka tasuumu الnahaara wa taquumu اllayl waxa weeyaan maxaa la iigu warramay oo la iima sheegin miya yacni waxaa soo gaartay nabiga calayhi isalaatu wasalaam xaaska cabdullaahi ibnu camr ibnu caas baa u timid markaase waxay ku tiri yacni ninka kan rasuulka allahu habeenkiina salaad buu taagan yahay maalintiina waa soomay wixiise hadday xogaa salaadna uu marna salaadna taagnaan lahaa qaybna ka taagnaan lahaa maalmaha qaarna uu soomi lahaa waxbay ahaan lahayd xaqeenii uu dayacay xaqiisii uu dayacay waxa weeye anagii sariirta bas ka jiifnaa sidee wax u jiraan rasuulka allah bal horta ninka kale la hadal bay ku tiri xaal baa jira waana saasoo qof maantana sooman oo maalin kasta sooman oo habeenkiina salaad u taagan yes waa camal aada u wanaagsan laakiin xuquuq kalaa meesha jirto waad ku dayacaysa ma ujeedaa oo la doonaya qofka inuu ka soo baxo waajibaadkeeda markaasu wuxuu yidhi balaa ya rasuul allah rasuulka allah haa arrintu waa sida lagugu sheegay qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi falaa tafcal sidaa la ii sheegay ha samaynin sum waa soomi kartaayo soom wafdir afur wa qum salaad u istaag wanam seexo yacni marna seexo mar soo toos mar salaad u istaag mar maaragtay maalintiina mar soonsoon mar waxa weeyaan hurdadaadina seexo maxaa yeelay buu yidhi fa ina lijasadika calayka xaqaa jirkaaga wuxuu kugu leeyahay xaq buu kugu leeyahay buu yidhi inaad hurdo siiso cabdullaahiyow wa ina licaynika calayka xaqaa ishaada inay seexato oo ay na gududsatado xaq ayay kugu leedahay buu nabi calayh isalaatu wasalaam wa ina lizawjika haweeneydaadana calayka xaqan xaq bay kugu leedahayoo mucaasharadeeda iyo sariirteeda la seexatid oo time gelisid oo gabadhaasi waxa weeyaan maaragtay muxuu ahaa halkaas kuu jiifta inaad la seexatid ayadana xaq bay kugu leedahay la soco wixii oo dhan ha dayicin oo salaad iyo soon oo keliya ha ku ekaynin wa ina lizawrika calayka xaqa majeedaa midka aada marti gelinaysidna dushaada xaq buu kugu leeyahay buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam wa ina lijasadika calayka xaq wa ina lijasadika yani wa ina bixasbika waxaa kugu filan buu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam an tasuuma inaad soomtid maxaa soomaysaa kulla shahrin bil kasta halaaثata ayaam 3 maalmood oo keliya fa ina laka bikulli xasanatin maalin kasta oo aad soontid 3daas maalmood 10 amhaaliha wanaaggaas maalinka aad samaysay rabbi 10 buu kugu dhufanayaa fa ina dalika taasina waxay ka dhigan tahay haddii 3daasi min 10 lagu dhufto waa 30 maalmood inaad sooman tahay bay ka dhigan tahaye fa ina dalika siyaamu dahri buu nabi calayhi isalaatu wasalaam kulli waxay la mid tahay inaadba weligaaba sooman tahayba arrintaas yase kula sahlanaanin buu yidhi cabdullaahi ibni camr ibn caas wuxuu yidhi fashadadtu waan isku adkeeyey fashuddida calaya markaasaa liigu sii adkeeyey buu yidhi macnaha waxa weeyaan wax laga reebay ayuu ku socday qultu waxaan ku yidhi yaa rasuula rasuulka allow innii ajidu anigoo waxaan dareemayaa oo aan is leeyahay quwatan awood intaa aad sheegaysid ka badan inaan samayn karo oo maalmo badan aan soomi karo ayaan isu arkaa buu yidhi rasuulka allow faqaala calayhi الsalaatu wasalaam nabiga alayh salatu slam marka wuxuu ku yidhi fasum siyaama nabiy llahi daa'uud haddaba waxaa soontaa soomkii nebi daa'uud calayhi الsalaam walaa tazid calayh arrintaasina ha ka ziyaadinin iska soonoo maalin walba ah iyaysan dhicin buu yidhi cabdullaahi muusan garanay marka qultu waxaan ku yidhi wamaa kaana siyaamu nabiy llahi daa'uud calayhi الsalaam sidee buu ahaa soomkii nebi daa'uud nebiga allow suubanaha sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi
nisfa dahri. nisfu dahri waa maxay? sanadka barki. sanadka barki waxaa laga wadaa yani maalina soon maalina afar waay. maalina soon maalina afar. fakana cabdullaahi radia allahu tacaala canhu وardaahu wuxuu ahaa yaquulu bacdamaa kabira, markuu weynaaday oo da' noqday, ilaan asaa waxaan isku adkeeyey, ayuu xoran jiray yaa laytanii qabiltu ruksata الnabiy sala allahu alayhi wasalam. war shalaytideeda iyo hoogeege maxaa u qaadan waaya ruksadii nabiga calayhi salaatu wasalaam 3 maalmood keliya inaan soomo bishii, maxaan taa u qaadan waayey? hadda maantay sooma aragtaan bu intaan waayeeloobay anigoo nabiga sal slam saasan samayn karaa yiri oo samee i yidhi, miyaan hadda iska dhaafi karaa? mawjeeda yani waa isku adkeeyey, markaasaa liigu adkeeyey. cajiib. idan markaa walaalayaal waxaa weeye in maaragtay muxuu ahaa qofka reerka uu time geliyo, naftiisa wakti siiyo, inuu maaragtay yani cibaadadii wakti siiyo, in uusan noqonin qof hal meel keliya ku dhegay ama masaajid fadhiya ama meel mawlac intuu galay dhex fadhiistay ama caawa dhan taagan maanta dhan sooman xuquuqo fara badanna dayacay inuu noqdo lama rabo. wa fi saxiixayn waxaa ku yimid can abi hurayrata can abi shurayxin alkacbiyi radia allahu canhu ardaa ana rasuula allahi sal ly slam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kana yu'minu billah walyawmi alaakhir, qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeyow falyaqul khayran aw liyasmut, khayr ha yidhaahdo ama haska aamuso. waman kana yu'minu billah, qofkii ahaaday mid rumeeyey alla weyne iyo walyawmi alaakhiri maalinkii dambeeyey, falyukrim ha sharfo jaarahu dariskiisa. waman kana yu'minu billah walyawmi alaakhir falyukrim ha sharfo dayfahu martidiisa. jaa'izatuhu, martidaasi yani jaa'izada iyo maaragtay soo dhaweynteeda iyo martisoorkeeda waxaa weeyaan yawmun wa layla wa diyaafatuhu 3 ayaamin. martidaasi jaa'izada u horeysa iyo maaragtay muxuu ahaa inta hore waxay muxuu ahaa la doonaya qofka dayfkiisa ah la doonayaa inuu habeen iyo maalin ama soo dhaweynteeda ay noqoto 3 maalmood iyo 3 habeen. qofka martida xaq wuxuu kugu leeyahay 3 maalmood iyo 3 habeen hadduu kuusoo martiyo waajib kugu tahay inaad si fiican u soortid ayaa la doonayaa. famaa kaana bacda dalik, intaa wixii ka badan miyaa fa huwa sadaqatun, qofka sadaqe u tahay. martidii hadday isbuuc joogayso, 2 isbuuc joogayso, 4 isbuuc joogayso, haddaysan adiga dhib kugu ahayn waxa weeyaan adiga sadaqa kugu tahay, laakiin inta hore waa farad weeyaan, waa waajib. walaa yaxilu, uma banaana lahu qofka an yahwiya inuu iska joogo cindahu qofkii martigeliya agtiisa xataa yuxrijahu ilaa uu dhigo. yani maanta o marti hadday 3 maalmood ka badato waa la wareystay, waa la kala xiiso dhacay, adigii wakti badan baa lagu geliyey, waxa weeye aad ba wax lagugu horay, xisaabo fiican baa lagu siiyey, haye waan sii macaansada waa fadhinaya maa leeda ma iska fadhina maanta dhan oo berri ma fadhin oo tii kale ma fadhin, bil baa meesha fadhidaa. arrinta noocaas ka nabi sal slam wuxuu yidhi uma banaana qofka in walaadkiisa marti geliyey inuu dhibo oo la dhibsado, shay fiican maaha. casharkeena insha allah intaasuu ku egyahay. wallahu aclam, wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamadi wacala aalihi waasxaabihi wasalam. aadaab aطacaam ayaa inoogu xiga. allah soo dhawaada wixii kala su-aalaha. جزاك الله خير شيخنا الشيخ محمد حسن. إلهي ميزانك حسناتك حقو صار إن شاء الله تعالى شيخ محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون. أنا كان الله نقدر من الذين سمعنا وقالوا فيتبعنا أحسن كل كفيل الله نقدر سيدا ونأكسن مرتبة صورتا 10 كفائدة إن شاء الله تعالى نسيك أرسيس أمتا إن شاء الله. إلهي أبقى وحفلا دور سؤال إن شاء الله تعالى هي لوك بريتك. سؤال شكوبات إن شاء الله.
macnaha kelmadda marti ma qofka magaalada kula degan miya mise qofka meel fog ka imaanayo ayaa macnaha martida waajibka kugu ah ma qofka kula degan oo kuu dhow ayaa mise waa midka ogaha meel midkaa fog ka imaanayo bismillahi rahmaan raxiim marti sidiisa waxaa qofka guriga hadduu kugu yimaado waa kuu marti weeyaan martidaasna marka waxay kala leedahay xilliyo kala duwan hadduu markaa meel fog kaaga yimidna dee dantiisa iyo hawsha intay ka dhamaanayso martiba ku yahay hadduu meel dhow kaaga yimidna maalinkaas oo dhan isaga ayaa iska leh oo kuu soo martiyey magaaladaas kale kaaga soo martiyey macnaha gurigiisa kaaga soo martiyey magaalada kula deganaa marka hadba waxay ku xirtahay durationkeeda iyo xilli martida ay joogayso laakiin qofba marba hadduu gurigaa usoo qasdo kuu yimaado maalinka adigo martiba ku yihi maalin baa kula jooga gelin baa kula jooga allah ka dhigo wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh maxamed qofka martida haddii aan uga boqo macnaha xan iyo waxaas iyo qof hadduu yahay qof xan badan oona marti ii yahay arrintaas maxaa ka dhihi lahay sheekh maxamed yani xambadnidiisa marka haddaad soo dhawaysto aad ba kuusii xamalayaa miya marka haddii sidaas macnaha qof macnaha yani qof ayuu kaaga sheekeyna ama arrin xan ayuu kuu sheega waa qofka yani warqaad qaad badan camal marka waxaa samaysaa qofka noocaas oo kale ah adiga waajibka lagu leeya waa inaad marti gelisid weeyaan wuxuu doona ha ahaado iskana ururisaa oo yani in maaragtay muxuu ahaa taxafud inaad hadal uu kaa qaado inuu qof kale kugula xanto inuu maaragtay muxuu ahaa markaasi yani adigii uu macnaha hadhow daliil kaa dhigto iska ilaali wixii waajibka ah iyo wixii martihan lagugu leeyahay oo keliya yuusan dhaafin markuu arko de inaada meel u soconin idan marka sidaas ka lugeynayo sooma haddii uu ku xumeeyo markaad soo dhawayso kadib hadhow mar dambe inaan soo dhaweeyo miya waa inaad soo dhawaysaa mar walba waa inaad soo dhawaysaa xataa hadduu ku xumeeyo haddaad soo dhawey wanaagga iyo xiriirintaba sideeda waxay ku jirtaa qofka ku goynaya inaad adigana soo dhawaysid weeyaan hadduu xan kula soo galo nacam waxaaba ku fiican adiga waxa weeyaan ilaahayna uu maalinta qiyaama wejigaaga naarta uga leexinayaa in haddii xan uu kula galo inaad tidhahda naga dhaaf qofka isaga maanta kuma dambaabayno ayay wax kala noo wad qofka inaad leexisid mar walba intaad leexin kartidna aada leexisid qofka isaga ah jazaak allah khayr sheekh maxamed xaajiga ma u ogol yahay macnaha inuu dhaho dad qayb ka mid ah qaraabada gurigeyga ma imaan karaan macnaha haddii marti ahaan igu imaadaan oo kale ma xaq ma u leeyahay hadduu yidhaahdo ma soo geli karaan gurigeyga qofka xaq uu leeyahay odagaaga hadduu ku dhaho dadkan iyo hebel iyo dadka noocaas oo kale ama qaraabadiisa ah ama cidday doonaan ha ahaadaan yaan la ii soo dhaweynin ma soo dhaweynaysid dambi bay kugu noqonaysaa haddaad soo dhaweysid lama ogola baarak allah fik sheekh maxamed ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuu saaro ilaahayna ku xifday insha allah tacaala waxaa filayaa su-aalihii intaas ayuu ku egyahay walaal kale oo su-aal soo dhigi trafikka ma arki insha allah haddii jiraanna insha allah taala saboorta soo dhigi kartiin sheekh maxamed إلهي أكو حفظي إلهي الميزان حسنات كوثر إن شاء الله وخصوصا بإذن الله